Mr. Maxamuud Cumar oo ah gudoomiyaha waxbarashada degmada Beledhig ayaa inooga warbixin doona marxaladii ay soo martay waxbarashada degmada Beledhig iyo deegaanada uu xukumo degmada Beledhig ee dhanka waxbarashada. Falyatafadal gudoomiye Maxamuud Cumar adoo ku bilaabaya magacaagii. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. runtii waysigan fursad qaali bay tahay. Waxaa fursad qaali aad ugu tahay markii ugu horreysay ninka waraysiga iga duubaya waxa weeye ardaydii oo ka soo baxay jaamacad soo qalin jabiyay xeelal badan ka soo kala duwan ka soo qabtay dhinaca Itoobiya walxamdulillah waxbarashadu waxay soo martay dariiqo badan bay soo martay kacakuf badan bay soo martay waxay soo martay dhiirigelino badan bay soo martay alxamdulillah maanta meel wanaagsan ayay maraysaa Soomaaliya soo qaaday waxbarashada waxay soo bilowday University dugsiga hoose dhexe Beledhig maalinta lugeedka hoose ku bilaabanay laba qol oo dul qaawan ayaa ahaa ardayda geed hoose waa nagu gelka dambe soo rugooda ayaan wax ugu dhigi jiray sida ay ka markaan ugu dhigi jiray aan u dhabar aragnay aan ugu dhigi jiray yaa maalinta dambe Axmed Bilad Guleed oo ahaa markaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka oo iska deeqranta xilligii 1993 meelaha 94kii iyo nin la oran jiray Axmed Xaaji Xasan Gelo ah isna kormeera markaa xilliga ahaa yaxaad la yiraahdo Norwich oo tin la Faisal ayaa waxay qalabaysay oo ma ay saartay laba fasal oo Somaliland هذا كل يقول كتير ka waxayo ilaa wajaale meelaha laba fasal magaalada soo jeegada ma jirin jaar la qaato oo guna la qaato ma jirin lacag Somaliland leedahay markaa jirtay ma jirin waxaan soo kacay qofnaba markii labada fasal loo qalbiyay jeegada loo saaray ayaa waxa kacakufkii oo iska sii wadnay 19 أدولاش كل يسقال بقول سقاش لسه دعيا قلوب الوجود بالوضي هالكا يكسر جد بين أنا مركا كل جيب أنها نيجي كود داري أنها ماشى نيجي قرني أنها برشة واحد هاي وكوب سقاش كي أيام بقاضي وحمشهر كله يقول كل يسقال بقول 95 كم بلا إلى 94 دقيقة هم صاحب يلا عشان شاكي بلوني تدركون يا شباب بقولوا لا أنا وإلى نيود أيوة مشاركة قاطي مركب بقولكم كم كيشين لا أنت وحلي وبقولكم بقولوا نيودي هذا تبان عقال الله يرحمه رحمنا قركة الله نحرسه يا بلاي العكا وعنا هاي معلمين تقول سي مشاهد دولة ضحك قركة سليمان محمود سلام قال يا أمريكا وسيرك وصار ده برشلونة وركتير وجزء رئيس لما قصوا صارنا سلام محمود هذا صو صاره سلام المسلم أيام رونا يا حاجة هذا أيام لو قلت ماشى وأنا هنا وركتير لكن إسلام مركا واحد كعبته هذا سيف جلران أيام لو وركتير قول كتولر تتوسكي لا تتوسكي هذا سو حيكون قولي ستي ومركا قدومي وحبرشة قبل كانوا حرام مع إبراهيم محمد سعيد ده ويني وحيكون قولي ستي دستو أما عارفرتو أفضليو سجاشن سكول أو قبل كتوليرا إبراهيم محمد سعيد قدومي وحبرشة قبل كأيوه مركا ده ويني runtii wuxuu aanin aan ilaawan taariikh waxbarashada tole waqti taariikhiya uu noo shaqeysiyay active buu ahaa dugsiga hoose dhexe maanta waqtigaa jiray waa la kordhiyay saftileerin baa kordhisay waxa soo aata macallimiin baa la helay mushaharka dawladda iskaba yaraaday uu magaranaysaa waxa loo qsid gacanta ugu weyn ee laga helaa waxa xagga saftileerin iyo qurbajoogta kaliya laakiin wasaaradda waxbarashada awood caynkaas oo ma lahayn ay ku hanatay markaa dugsiyada sida tamaanta oo saddexda sida tamaanta oo kale okay ay soo gadideen markii loo koriyo labada ahayd ayaa waxa la magacaabay gudoomiyaha waxbarashada degmada iskuulkii oo maray 12 fasal oo saddex aan ka soo bilownay isla markaa waxay noqotay markaa inaan galno gaab cusub oo abuuran oo ah heer degmada iyo xukuumadda wax iskuul oo markaa ka dhisnaa meesha oo degmada iyo jiida tuulooyin ka dhisay wax kasta Beledhig oo kaliya نقشة أيه وحكاية فري أضي نسيفر ليلة أيه كاير فري اسكولكا
dabeedna uu adugu in buriisocdu isla socon waayo wuu xidhnay halkaa iskuul baa marka waxaanu doonaa haddii barkadu gacamo magaalada barkada qodo gacamo inaad samaysaa wanaagsan xafiiska guddoonka waxbarashada degmada Beledhig iyo xafiiska guddoonka waxbarashada degmada Buuhoodle iyo xafiiska guddoonka waxbarashada degmada Oodweyne ayaa hay'adaas u dhisay berigaa saddex degmo ah gobolku waxaana siisay 3 mooto oo baadhi wasaaradda waxbarashada hay'adda self jeerin ayaa support garay jirtay gobolka iyadoo loo fududeeyay jirtay wax walba waxaan ku guuleysanay inaan markii hore furo iskuulka Dhabiilay inagoo tuurta ku qaadnay sabuuradda aan ardayda ku leeyno kala lugeynay Beledhig iskuulka Dhabiilay waa Cabdullaahi Xalane markaa oo graduate joogo aan ku magaranaysaa aan wacyi gelinay inuu qabto iskuulka macalinka graduate-ka waxaan isku qabsanay Ibrahim Dhegaweyne oo isla doonayay inuu gobolka geeyo anna aan doonayay magaalada Dhabiilay iskuulka aan furayno oo ka shaqeeyo waa physics maths waa graduate-kuna uu yaraa beriga aan si kasta aan ku guuleysanay dhexdheer baan ku guuleysanay ana dhaxan ku guuleysanay sibidle dhuqashay dibaax wax ka saaray 16 dugsi iyo 3 sekondari 12 dugsi oo saddex 3 sekondari iyo 3 aawi program barnaamijka ku shaqeeya barashada dadban ee maanta degmada ka dhisan degmada gobolka waxa ka dhisan maanta sekondari form 4 oo laga baxay 10 dufcad ka baxday ayaa ka dhisan hadda waxaan doonayaa inaan hirgelino xeel jaamacadii waanu dhagax dhigno ayaa maanta degmada noo dhagax kale ma hadhin barnaamijka wasaaradda waxbarashada runtii berigaa waxay lahayd barnaamij cad oo ay ku hagto wasaaradda waxbarashada wax kala dambeyn baa lahayd structure bay lahayd DO high teacher aro mooy Ministry of Education oo qof walba qof ka amar qaadanayo gudoomiye waxaan su'aal ka weydiinayaa adoo naga soo warramay marxaladii uu soo maray waxbarashada degmada Beledhig iyo ereyada ay xukunto inta iskuul ee ka dhisan degmada Beledhig aad xukuntid imika baahiyaha imika ka jira degmada qarnas iskuulka waxa ka dhisan iskuulada iskuulada ka dhisan waxa weeye 13 oo 12 iskuul waxa ay dugsiyo hoose dhexe 3 secondary way ka dhisan yihiin 3 iskuul oo ah aawi program ku shaqeeyo dabaqabad heere iyo libaxle ah oo ka dhisan yihiin baahida maanta jirta waxa weeye kaliya war sidii loo sixaa managementiga structure-ka wasaaradda waxbarashada maamulaha iyo DO-ga iyo RO-ga iyo Ministry of Education sharciga in la dhiso ayaa wanaagsan way hadii sharcigu duwan waxa ma soconayaan baahida sawaata gaadiidka waxbarashada waxa gaari u fadhiya desper shidaal waxa markaa contribution bal ugu yibiyay runtii waxaan rajayn doonaa hadii la dib u soo abaabilo ama xeer qulajooga ama wasaaradda ama dadka ay xisaabiyaan garanaysaa waxaan uga baaqaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxbarashada gobolka laakiin waxaan leenahay war structure-kii wasaaradda waxbarashada maxaa ka saaray meeshii waa maxay hay'addan iyo maamulaha isku xidhanay waa bay soo marnay waxbarashada gobolka waa bay xafiiska DO-ga u iman lahayd sidii safe children waxay baxas cala taray waxaan kala weydiinaa war maamulkan la daadajinaya hadii waqtigeena cigaal taariikhda inta ahayd DO-ga iyo RO-ga wax loo suxnaa shaqeynayeen maamulkan la daadajinaya goorma la laalay يا قربان الله ما بدأت تجمع على سمانية وقربان الله إن عقال با DO-ga iyo RO-ga iyo xafiisyada wax walba dhisay taasoo waa su'aasha aan wali isweydiin kale waxaan ka hadli doonaa isla barnaamijka shaqo qaran waan arko runtiisina hadafkiisii wali si toos ah isugu daba dhicin fikirka laga qabo ay ku kala duwan yihiin ardayda shaqo qaran iyo dawladda ay bal fikirka ay fikir kala duwan maadaama haynin khibrad waxbarashada marka loo soo baxay dugsiyada hoose dhexe iyo sare madrasada dawladii hore iyo jaamacadihii imkana intaasoo sanad ku soo dhex jiray bal barnaamijka la fakray dadka qabayna magaranaysaa bal aan soo markaa doonaya waxaan u mahad celinayaa cabdisalaam ardaygii oo jaacad ku qalintay dhowr soo qabtay maanta ay dubaya aad iyo aad cabdishakuur aad iyo aad buu mahadsan yahay waan u ducaynayaa inuu sii wada doono haddii la yidhaaho aan ku kala tarno fikra assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu channel-kan like iyo subscribe wax walba ku dhufta haddii ilaahay ka dhigo warbixin kastoo degmadana kala socda iyo waxbarashada degmada siiba gudoomiyaha waxbarashada iyo waxbarashada degmada ayaan u helin doonaa haddii ilaahay ka dhigo gudoomiye waad mahadsantahay bismillah